بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، فسهل كل أمر عسير علينا يا رب العالمين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان سلام يا دمان أمد الصوماليات ميل والبا أي دنيدا كجوغان، كوا قدها جوغا كوا دبد جوغا انت با. anigoo ah Ciise Cali Sheekh Axmed, ku nool ama degan wadanka Sweden. waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u soo bandhigo mashruuca Nahda, mashruuc dib u dhis Soomaaliyeed ama dib u nooleynta Soomaaliyeed. waana qaybtii saddexaad, xalaqadii saddexaad waaye ee mashruucayna. xalaqada qaybta saddexaad waxay ka hadlaysaa road map, waxa la yiraahdo ay ka hadlaysaa khaaritatu tariiq ay ka hadlaysaa, oo ah todoba shay ayaan rabnaa inaan ka hadalno. tan koowaad waxa waaye ifham ama alfahm. fahm almas-uuliya, in la dareemo mas-uuliyad, in la dareemo qofku inuu yahay mas-uulun can nafsihi wa mas-uulun can ahlihi wa mas-uulun can mujtamacihi. waana la weydii doonaa qof waliba oo anaga kamid a. ilaahay baa weydii doona subxaana wa tacaala, waqifuuhum inahum mas-uuluun. su-aal ayaa jirta. marka fahmu lmas-uuliya, inaan mas-uuliyadda naga saaran mujtamaca, inaan fahmno mujtamac nooga baahan in la badbaadiyo, inqaad mujtamacan iska wareeray, dhibaatadu qabsatay, badaha ku le-anaya, dhalinyaradii ay sidaa maaragtay usoo boqolayaan oo badihii ay ku le-anayaan, oo yurub ay u tahliibayaan, oo wadankii gudihiisa shaqa la-aan ay ku hayso, oo waxbarasho la-aan ku hayso, kii waxbartana uusan ku haysan, oo rajo la-aan ah. mashruucani marka waxa waaye waa mashruucii rajada waaye, waa mashruucii raja abuurka waaye insha allah, haddii ilaahay noo sahlo. marka alfahmu awalan, in la fahmo. tan labaad waxa waaye markaad fahamta kadib atayaqud ayaa laga doonaya. tan labaad oo road mapka ah waxa waaye atayaqud, inuu qofku soo jeedo oo noqdo qof oo yaqid ah, oo soo jeeda oon hurdaynin, oo baraarugsan, oo iska qaaday kulli xawaajistii iyo maaragtay isbaarooyinkii kulli qalbigiisa ka qaaday, oo ahayd macnaha saddexdii aan soo sheegno xalaqadii hore aan uga soo hadalnay. oo qofku iska zuuliyey qanaacaadkii oo qalafsanaa, oo kharibnaa, oo naftiisa uu isku qancinaya, oo ahaa waxba adigu ma samayn kartid. qofka markaa sidaas ahi waxa waaye waa qofka dhihi kara ana al-insaan alladii yuriiduhu allahu tacaala, anigu waxaan ahay qofkii ilaahay doonayay, waaba anigaba, liannii fahimtu suurat walcasri, khitatu najaax ayaan fahmay, ayuu dhihi karaa. marka atayaqud ama alyaqada, soo jeedku waxa waaye waa wacyi, waa baraarug, waa dhug, waa maskax qofku uu helo waaye. waagii jaamacadda aan dhiganayay ayaan arkay buug uu qoray nin carbeed, kollay magaciisa hadda ma xasuusto, laakiin buuggii magaciisii ayaan hayaayo waxaa la dhihi jiray الصومال والوعي الغائب ayaa la yihahdaa. Soomaaliya iyo dareen la alwacyi alghaa'ib, waxay dareenkiyaaba ka tegay. marka anigu saas ma nihino, sidii ma nihin oo dhihi jiray ninka la yidhaahdo Axmed Mansuur oo kaleeto Aljazeera ka hadlayay, oo dhihi jiray sidii Soomaaliya kale inay noqdaan ayaa laga yaabaa wadamadaas assoomala. marka assoomala hadda waxaa bedelay maaragta assurana iyo maaragta allibiya iyo maaragta iyo wixii lamida, iyo yaman iyo Soomaaliya, iska daaya yaman iyo Suuriya iyo Ciraaq, iyo dhibaatada hadda ka taagan waad la socotaan, oo dadka inkaarta qaba ay ku hayaan. marka as-Soomaal walwacyi alqaa'ib, marka taas looma baahna. marka Soomaal walwacyi alxaadir loo baahan maanta. Soomaal iyo walwacyi alxaadir
wacyi jooga, dareen jooga oo dhalinyaradu ay qaataan, oo aqoon-yahanka uu qaato, oo mufakirka uu qaato, oo siyaasiga uu qaato, rag iyo dumar la wada qaato ayaa maanta loo baahan yahay. marka yaqadada waa midda loo baahan yahay. qofku waa inuu dareemo inuu kamid yahay mujtamaca bulshada, inuu kamid yahay, isla markaasna mujtamacaani xanuunadiisana uu la xanuunsanayo, rajooyinkiisana mujtamaca rajooyinkoodana uu ku farxayo waa inuu noqdo. tan saddexaad marka waxaa waaye oo khaaridatu tariiq kamid road mapka qofka mashruuca nahda ka shaqeynayo uu noqonayo waxaa waaye al-intimaa, inuu qofku u nisba sheegto qolooyin wax qabanaya, qolo wax qabanayso, qolo aan aniga ilaahay, anigu ma dhahayo xisbi hebel, urur hebel, jameeca hebel, qabiil hebel la dhihi maayo. laakiin adiga dhegaysanaya oo maqlaya oo garaad kale ayaa waxaa lagaga rabaa inaad noqoto muntami ilaa jamaaca aw ilaa xisbi ama jamaaca wax qabanaysa inaad kamid noqoto, adiga ayaa lagaa doonaya, ummad wax qabanaysa. laanna waxaa la yidhaha far keliya fool ma dhaqdo, alyad lwaaxid laa tusafiq, gacan keligeed ma sacbin karto, waa in labada gacmood la isu geeyo. waliba fartan keliya maane, shanta farood markii laisu geeyo wax qabanaya, markii 5 urur 5 xisbi markii laisu geeyo, 5 jamaaca markii laisu geeyo, markaasi wax qaban karaan. marka waa in laga baxo qofku dareenkiisa iyo fikirkiisa, waa inuu sare uga qaado ana wa jamaacati, ana wa xisbi, ana wa qabiilati. waa inuu taas waa inuu qofku inuu ka baxo, waa inuu ka baxo. muxuu baxaa? naxnu lumma, ummad ayaan nahay. saas ayaa waxaanu ka dareenay markaan usoo boqolnay oo aan nimid wadamadan Scandinavianka. markaan nimid taas ayaan fahamnay ummadii wada jirta inay wax wada qabsan karto. wadankan Sweden markii la fiiriyo 7 xisbi ayaa maaragtay ka diiwaan gashan. 7 xisbi maalinta ama bisha doorashada markii la gaaro taambuugyadooda dibadda ay kusoo dhistaan. xisbigan waa xisbigii socialka, xisbigan waa moderaat, xisbigan waa isfaariya dimuqraat, xisbigan waa hebel, xisbigan waa hebel. laakiin Soomaalida xisbiyadooda waxay noqdeen xisbigayga kaliya ayaa dowlad dhisaya, qabiilkayga kaliya ayaa dowlad dhisaya, magaaladan aniga kaliya ayaa ka talinaya, magaaladan aniga kaliya ayaa iska leh. waa الصومال والوعي الغائب، الصومال والوعي الغائب واي. marka al-intimaa ayaa loo baahan yahay. warkii oo kooban, barnaamijkan waa barnaamij ka kooban, lama faahfaahin karo oo waqti looma hayo. tan afraad waxaa waaye albinaa, inaad wax dhistid oodan wax dumin. waan ka hadli doonaa mal farqu bayna albinaa walhadmi, in wax la dhiso, ummad la dhiso iyo ummad in la dumiyo, farqiga u dhexeeya muxuu yahay waan ka hadli doonaa. marka albinaa waxaa waaye inaad wax dhistid. kow waxa ugu horeeya kasoo hadalana waxaa waaye alamal, zarcu lamal, rajo in lagu abuuro qalbiga, oo qalbigayna marna ciriiri uusan gelin. qalbigaada ciriiri inuusan gelin. falaa yakun fi sadrika xaraj, falaa yakun fi sadrika xaraj. qur-aanka meelo badan baa lagu sheegay, ma arkaysaa. marka zarcu lamal marka waa wax aada iyo aada u wanaagsan oo qofka laga doonayo inuu la yimaado rajo, inuu la yimaado. amalku waxaa waaye waa dariishada keliya oo qofka u furan oo dadkana uu ka arki karo, asna laga arki karo. si u arko markaad dibadda aada istaagtid, daaqadda markaad istaagtid, waxaad arkaysaa al-amal al-fasiix, al-fadaa al-wasiic, al-waasic amaamaka ayaad arkaysaa fi al-fadaa, al-ashjaar wal-hawaa. marka rajo ayaa kugu abuurmaysa. markaad rajo heshid waxaad arkaysaa almustaqbalu zaahirun biidn illah, mustaqbalku waa soo iftiimaya marka. wa ana nahdat al-umma sataxaqaq, ummadan inay dib usoo kabatana oo horay ay u socotana, ay horumar gaartana way xaqiiqi doontaa, xaqiiq bay noqonaysaa, xaqiiq ayay noqon doontaa. marka waxaa la yidhahdaa maa adyaqa alcaysha lawlaa fusxata alamali, maa adyaqa alcaysha, nolosha maxaa ciriiri geliyay haddii amal iyo rajo haddaysan jirin. marka qofka rajo la-aanta ah waa qof ciriiri ku jira. waa
marka albinaa markaan ka hadlayno waxaan soo qaadanaynaa haddii aan la yiraahdo saddex shay markaan wax dhisayno. mid waxaa la yihahdaa alfasila, mid waxaa la yihahdaa altamra, mid waxaa la yihahdaa athawb maro ayaa la yihahdaa. alfasila waa geed yar ood abuuraysid sida geedkan oo kaleeta ah, geed yar ood abuuraysid. waxaanu jecelnahay inaan wax abuurno, inaan geed ku beerno meel walba oo waddankeeni kamida. may geed abuuri mayne, waxaan abuuraynaa dad ayaan abuuraynaa. wanaag ayaa lagu abuuraya, wanaag iyo khayrka ayaa lagu abuuraya, sharta iyo dhibaatooyinka ayaa laga soo horjeedaa. marka saas oo kaleeta ee qofku wuxuu abuuraya. marka xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo imaamu axmed uu warinayay raxmatullaahi tacaala, oo bukhaarina uu kusoo saaray fi ladab almufrad can anas ibn malik. النبي وحول عليه الصلاة والسلام إن قامت الساعة وبيد أحدكم فصيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليفعل. هذه ساعة قيامه أي استاكته. وفي يد أحدكم فصيلة قعنتنا قفكين وكوها فصيلة ولانير أو عرض أو دون للك إنه ساعه طلاله. هذه أوده أود إليه إنه طلاله intii saacada qiyaamaha aysan dhicin ha talaalo nabiga amray alayhi salatu wasalaam. marka waa xadiithul fasila. marka wax dhisaysid marka waan ogtahay xadiithul fasila waxa la yiraahdo waan ogtahay. atamra ajra marka timir marka wax dhisaysid waan ogtahay shay la yiraahdo timir inuu jiro. timirtana laf baa ku jirta. timir markaad abuurtid markaysa khayr baad ka rajaynaysaa. timir markaad abuurtid khayr baad ka rajaynaysaa. nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ah ittaqu naara walow bishiqi tamra. naarta iska jira walow timir jeexeedba, timir jeexeed dhinaceed aada isaga jirtiin ood isaga ilaalisiina, waxbana naarta iska xijiya. ma arkaysa marka tamra marka waxaa loola jeedaa hal timir marka ha yaraysanin. hal timir ku darso, hal shilin ku darso, hal shilin Soomaali ah ku darso mashruuc cunnada ku darso, $1 ku darso. mashaariic badan baa lasoo bandhigaa, Soomaaliya loo soo bandhigay. marka dadku waxay u qayb qaadan waayeen mashruuc cunnada aysan fahamsanayn. laakiin haddii fahamsanayn mashruuc cunnada $1 iska day $1 halka rooti ayay kala jebin lahaayeen. dadka masaakiinta ay siin lahaayeen, dadka fuqarada ayay siin lahaayeen. ma arkaysaa marka allahna fahamsiiyo. آمين. مركا التمرة مركا تمرتا مركا معناه دواتا تاس أيها لولا جد. مركا قف وحكى له لذا سومالي تمرتنا وحكوا لي هذان أما عربته بيه هذان قف كي تمر أبورة ماركيسا ما قرته ويا قرنايا ماركيسا تذكر قرنايا تذكر كادم بيا يا قرنايا تذكر كادم بيا يا قرنايا عجيب. مركا ولا عوا أنت أبور له تين تين أنت أبور له أوقات حاله أنت أبور له intaad abuuri lahayd bambooyin dadka ku qarxa, intaad abuuri lahayd dadka rajo iyo geedo u talaal, nolosha u soo celi, biyo sii dadka hagaaji qalbigaada naxariis ha laga helo. arraxma kun raxiiman kun ra'uufan, mid naxariis la noqo. tan saddexaad marka waxaa waaye mafhuumu thawb waaye. athawb markaad wax dhisaysid waa qaybtii afraadaan ku jirnaa. الثوب واي مرة iyo mashruucna hada maxaa kala gala dadku waa isweydiinayaan. waxaan ka soo qaadanaynaa nabiga qisadiisa calayhi salaatu wasalaam, qisati rasuul qabla alwahyi. markuu dhalinyarada ahaa carabtu meeshaas waxaa laga dareemayaa wax weyn baa laga dareemayaa xaqiiqatan. dadka carabta waxay ahaayeen dad dagaashan ayay ahaayeen, weligood ayay ahaayeen. waxaan kasoo qaadanaa dagaalkooda waxaan kasoo qaadanaynaa daaxis wal ghabraa dagaal dhihi jiray oo fil jaahiliya ay dagaalami jireen. waxa culimadu yiraahdaan dadkii Quraysheed ama carabtii hore oo jaahiliga wax ay isku ittifaaq ma kaana عندهم ittifaaq, wax isku waafaqaan ma aysan haysan jirin. waxba isku waafaqsaneen kali wax isku waafaqsaneen waxa la yiraahdo isla weynin iyo kibir. al-anafa waxa la yiraahdo qabiil kasta wuxuu jeclaa inuu boqor
inuu asuu kaliis naqdo ayuu jeclaa inuu asuu boqor uu naqdo marka loolan iyo siraac iyo xub dhuhuur ayaa ka jira in inta kale la baabi'iyo seefta la mariyo ayaa ka dhex jirtay ma arkaysaa marka alwuxda siyaasiya wax siyaasada ayuu muwaafaq ku ahaayeen ma aysan jirin diin ay isku waafaqsan yihiinna ma aysan jirin liannahu waxaa jira waxaa la yidhaahdo dadku markay wax isku waafaqayaan waa inay laba shay waa inay mid haystaan laba shay mid waa inay haystaan bal shaygaas bal u fiirsada walaalayaal imaa waxyi inay haystaan waxyi inay haystaan dadka inay waxyi haystaan waxyigaasi waxaa waaye yucjizuhu nnaasu can raddihi walityaani bimithlihi dadku ay ka caajizaan inay asigoo kale la yimaadaan alwaxy alqur'aan ma axad yastadiic ya'ti bimithli ma keeni karno qur-aan ma keeni carabtina ma keeni karin markaysa qur-aan lama soo degi karin iyo xadaarad ilbaxnimo atamadun waxaa la yihahda hermagaal dad la yihahda hermagaal sidaba hermagaalku waa dad degan herbaadiyuhuna waa dad korka imaad ah oo dad magaalo deganay dul yimaadaan marka dadka hermagaalka ayaa daa'iman wax dhisa marka diinna ma aysan haysan carabtii jaahiliyada xadaaradna ma aysan haysan laakiin xadaaradu daris bay leehdo faris iyo rum ayaa jiray xadaaratu rum wal faris ayaa jirtay marka taas waxaad ka arkaysaa sayidina cumar radia allahu canhu wa ardaahu qisadiisii oo ahaa carabtu waagaas asnaam ayay caabudi jireen isla weynina way qabeen marka asnaamta way caabudi jireen laakiin waxaa kaloo kasii daraa inay timir caabudi jireen qaarkood timir ay caabudi jireen haddii ay gaajoodaan way cunayaan haddii kalena way caabudayaan marka qofkaas oo kaleeto marka islaam noqdo oo waxay u yimaado oo sayidina cumar oo la yaqaano macnaha markuu islaamkii soo galana inuu noqday maaragtay dad islaamka ay cizi ay heleen markii uu madaxda noqdana maaragtay imaaradiisi ay naxariis ay noqotay oo taariikhdii cumar la yaqaano ayaa dadkii marka isbedelkaas ayaa ku dhacay markii waxyi ay heleen oo ayaga ayaa waxay noqdeen dad ahlul xadaara ah xadaaratul islam halkaas ay ka bilaabatay marka mafhuumu thawb aan usoo laabto qisadii nabiga calayhi salaatu wasalaam fi rafci alxajar alaswad ayay ahayd marka wax la dhisay waa in loo dhan yahay markaasaan ula jeedaa oo aysan noqon looma dhama soomaalidu meeshay tiraa looma dhama nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dagaashanaa quraysh ayaa dagaashanaa waxay ku dagaashanaayeen markii kacbadii ay dhiseen kadib ayaa xajarul aswad ayaa meel yiilay marka waxay rabeen xajarul aswad in lasoo qaado oo kacbada geeskeeda la dhigo marka qabiilkii ama qabaa'ilkii waa isku dagaaleen waana isku khilaafeen arrintaas waxay yidhaahdeen waxaa xaakim noo ah oo na kala xukumaya qofka ugu soo horeeya ee albaabka hebel ah kasoo gala wa ficlan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo wiil dhalinyaro ah ayaa albaabkii kasoo galay markaasaabay u wada eegeen waxay yidhahdeen kullunaa naqbaluhu wa nardaah kulligeen waa wada aqbalaynaa raallina waan ka wadanaa nabiga marka waxaa laga garanaya halkaas caqligiisii raajixa ahaa oo ilaahay marka horeba uu ku manaystay ayaa laga dareemayaa oo ahaa ma arkaysaa inuu go' usoo qaaday go-ina la dul saaray xajarul aswad uu yidhi kulligiin ka wada qayb qaata fi rafci alxajari alaswad wa wadcihi fi makaanihi in la dhigo meeshiisa halkiisa la dhigo marka waxaad arkaysaa halkaas markii dadka madaxda ah ay mashruuc ay aas-aasayaan oo wax dhigayaan madaxweynihii baa imaanaya ra-iisul wasaarihii baa imaanaya wasiiradiisii baa imaanaya xataa dadkii iska dahay kuwaan gudaha joogeen madaxdii kale ayaa la wacaya marka waa markii dhagax meel la dhigayo jaamacad baa la dhisayaa iskuol baa la dhisayaa mashruuc baa la dhisayaa marka hadda waxaa la qaatay mafhuumu thawb fi rafci alkhilaaf dhammaan aan ka wada qayb qaadano ururkan aan ka wada qayb qaadano xisbigan aan ka wada qayb qaadano shaygan aan ka wada qayb qaadano
laakiin haddii hal qof isku soo koobo ama laba isku soo koobto waxa waaye khilaafku weligiisu ahaanaya, wuu soconaya weligiis. marka waxa la dhisay iska daayay waxba la duminayaa marka taasi waa tii afraad albinaa oo aan kaga hadalnay marka wax la dhisayo alfasiila, التمر، الثوب، saddexdaas waa in la fahmo. tan shanaad waxa waaye oo cajiib kale ayadana saddex ay ka kooban tahay kun mashruucan aw kawin mashruucan aw idcam mashruucan ayaa la yidhahdaa. qofka daa'iman cimlaaqa ah oo geesiga ah wuxuu haystaa mashaariic ayay haystaan, ay ku fikirayaan inay maalin maalmaha kamid ummadda usoo bandhigaan. marka waxaa la yidhahdaa kun mashruucan, ma adiga mashruuc noqo, qof aqoon laha tahay, qof wax soo bartaa tahay, adiga ayaaba ah kulligaaba markaad socotid waddada aad maraysa adigan ayaaba mashruucba ahba. waa kaa haddii aadan mashruuca aadan ahayn ama waaba tahaye waxaad doonaysaa marka inaad mashruuciba aad dibaddaba usoo saartid oo dhistid ood ummadda uga faa'iidaysid. marka mashaariicdaas marka maxay noqonayaan? marka mashruuc ziraaci oo wax lagu oo macnaha xagga beeraha ah, beero qodato, afgooy, shabeelle, jubbooyinka, shabeellooyinka iyo inta kale meelaha webiga shabeelle jubba ka faa'iidayso. mashruucii faanoole faray kama qodna. صناعي mid warshad ah, warshado waan ka hadli doonaa warshadaha iyo sida ay noqonayaan iyo maxaa warshad ah maxaa se warshadayn adoo xalaqaad kala akhiira ay isaga jiri doonaan. maxaa warshada dadku marka waxaa laga yaabaa inay qof kasta uu ku fikiro in lasoo raro warshad laga keeno shiinaha laga keeno ama gawaari laga keeno halkaas. taasi waxa waaye al-istihlaak ayaa la yidhahdaa. taasi waxa waaye way fiican tahay oo hadda ma gaari karno anaga inaan warshada samaysano oo anaga waan haysanaa macnaha waxyaalihii awaliyaadka ah oo dhulkii iyo aqoontii waa la haystaa, laakiin mushkilad baa iska jirta. waa la gaari doonaa ayadan. صناعي warshad, tijaari ganacsi, tacliimi waxbarasho, baxthi cilmi baaris. mashaariic marka intaas ay u kala baxdaa mashaariic sagiira wa mashaariic kubra, mashaariic waaweyn. haddii mashruuc aadan samayn karin marka idcam mashruucan, mashruuc taageer. mashruuc taageer aduu waxa maysid, caajis baa iska noqotay, mid kale walba taageer. qof baa haystee ku taageer, ha aamusin weliga. marka waa kaa kawin mashruucan, idcam mashruucan waa qaybta afaraad waaye. qaybta shanaad aan yidhaahdo. qaybta lixaad marka waxa waaye oo kamid a road mapka ama khaaridatu tariiq kamid a waxa waaye atawaasul, tawaasul joogtay ka tawaasul الnaxli fi lcamal. sida ma arkaysaa annaxli waxaa la yidhaahdaa geedda malabka samaysa ayaa la yidhaahdaa oo la yidhaahdo fi suurati الnaxli, suuraddii maaragtay ilaahi subxaana wa tacaala cajiibka laheeda oo ku sheegay. marka sida ay shaqada u wadoo kaleeto u wad joogtay habeen iyo maalin, ma arkaysaa saas oo kaleeto. marka waxaa la rabaa qofku inuu noqdo sida naxli oo kaleeto, suuratu naxli, shinnida. tawaasul inkastoo loo baahan yahay markaad shinnidu waxay u baahan tahay garalaada shinnidu waxay u baahan tahay inay hesho aljawi lmulaa'im, ubax inay hesho, meel roob ku daay inay hesho, jawi mulaa'im u ah oo ay ku mirayso malab ay ku dhasho ayay u baahan tahay. tan toddobaada ugu dambeysa waxa waaye shaarik, ka qayb qaado. mashruuca nahda inaad ka qayb qaadatid oo qofku mar walba seminaarada, al-anshida walmuctamaraat inuu ka qayb qaato, aqoon isweydaarsi, dood wadaag waxaa ka fiican waxqabad wadaag. dood wadaag waa laska doodayaa bis un keliya, waxba qaban maayaan, ma arkaysaa. marka waxaa ka fiican dood wadaag, waxaa ka fiican waxqabad wadaag. waxqabad adiga waxaad soo qabatay mashruuc, aniga waxaan soo qabtay mashruuc, ka waxaan soo qabtay mashruuc, aan isu nimaado mashaariicdii aan ka wada hadalno. markaas markaad mushaarakaysid acmaasha socota,
shaqooyinka socda waxaad baranaysaa inaad ogaatid maanta maxaa soo kordhay, caalamka maxaa kusoo kordhay. laanno seminaarada waxaa lagu qaataa maxaa soo kordha maanta, afkaar baa laisku weydaarsadaa, afkaar ayaa laisku weydaarsanaa. marka waxaad noqonaysaa qof mas-uuliyad qaada ayaad noqonaysaa, qof mas-uuliyad qaada ayaad noqonaysaa. halkaas ayaadna ogaanaysaa dadka fikradooda kala duwan. marka xalaqadan waxaan kusoo qaadanay roadmap waxaa la yidhaahdo oo ah ifham, inaad wax fahamtid, atayaqud inaad maaragtay noqoto qof soo jeeda, inaad noqotay qof muntami ah, alintimaa meel ur wanaagsan oo waxqaba, ur xun lama rabo, ur ahlu shar ah, ahlu fasaad ah lama rabo. ma arkaysaa alintimaa inaad u nisbe sheegatid ama midleem ka noqotid, ma arkaysaa urur wanaagsan ood xubin ka noqotid joogto ah loola jeedaa. tan afaraad waxaa waaye inaad wax dhistid, albinaa waxaa la yidhahda inaad wax dhistid oo 3 qaybood ah dhismadaasi. tan shanaad oo ah mashaariicdii inaad markaas soo bandhigtid. tan lixaad oo ah inaad joogtaysid waxa kan sida shinnida oo kaleeto wax u joogtayso, inaad ka qayb qaadatid mashaariicda soconaysa iyo maaragtay waxaan ula jeedaa al-anshida wal-mu'tamaraat inaad ka qayb qaadatid. markaas qofku wuxuu noqonayaa qof fahmay mashruuca iyo ulajeedada laga leeyahay. waxaan kusoo gabagabaynayaa dadka dhalinyarada ah inay fahmaan mashruucan, oo qofka dhalinyarada uu yidhaahdo maantay dalkayga aniga ayuu isugayaa, ummadaydu aniga ayay isugaysaa, oo noqdo sidii uu yidhi Tarafat ibn al-Abdi الشاعر الجاهلي إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. إذا القوم قالوا من فتن عدي قومك uu yiraahdo laano jamal jaahili jamal fitna lagu jiro marka ninkan wuxuu ahaa nin maartay xagga dagaalka iyo ku wanaagsanay waha. إذا القوم قالوا من فتن hadii yiraahdaan yaa wax qabanaya oo dhalinyaro ah oo birmad ah, khiltu annani unitu waxaan u maleynay in aniga leela jeedo, falam aksal walam ataballadi mana noqonayo qof wahsanaya, qof baliidana oo waxba aan ogeyna ma noqonayo. marka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. aqulu qawli hada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. qaybta afraad marka waxaa waaye oo suuradda ka mid ah waa camilu saalixaati, camal wanaagsan sameeyeen. aladiina camilu saalixaat waxaa waaye aladiina qaamuu bixaqi illaahi, ilahay xaqiisa u istaageen, iyo wa xaqi nafsi, naftiisa xaqeeda u istaagay oo naftiisa aan dayacin, iyo mujtamaciisa u adeegay, iyo wadankiisana u adeegay. shaksigaas marka waa camilu saalixaati ah oo iimaanka laga helay oo waqtigiisa ka faa'iidaystay, kaas waaye alladii huwa alladii yuriiduhu mashruucu nahda. mashruucan la yidhaha mashruucu nahda dibudhiska Soomaaliyeed kan uu doonaya waa midkaas weeye. kan shanaad marka waxaa waaye watawaasaw bilxaqi, xaqana isu dardaarmay, xaqa isu dardaarmay. xaqa marka sidee la isugu dardaarmaya waa la ogyahay alwasiyatu bilxaqi inay tahay shay wanaagsan oo qofka kale oo muslimka uu ku leeyahay, walaalka uu kugu leeyahay. marka waxaa waaye qofkan xaqa dadka u dardaarmaya waa qof aaminay waxa uu rumaysan yahay, ayuu aaminay inay hirgeli doonaan iyo wax uu sameynayo. sidoo kale wuxuu aaminay qof kasta ee kala shaqeysa barnaamijkan in lagu guuleysanayo. marka qofkan waa qof kaligiis, marka wuxuu u baahan yahay in la kaalmeeyo ayuu u baahan yahay. watawaasaw bilxaq, watawaasaw bisabri waa qaybta lixaad waa marka watawaasaw bisabri, sabarkan isu dardaarmeen. marka sabarku marka waxaa waaye waa sabarku waa sibir ayaa la yidhaahdaa, wuu qaraar yahay. dadka dhanna ma sabri karaan. sibirku waa qaraar yahay, waa in gows dambeedka lagu qabsado sabarka. marka camal walba oo weyn wuxuu u baahan yahay adkaysi ayuu u baahan yahay. falacmaalu alcadiima, acmaasha waaweyn oo dadka wadaniyiinta ay sameynayaan, tashuqu cala alinsaani, insaanka way dhibaysaa. wa tabruzu alxaajatu fiiha, waxaa marka muuqanaya in loo baahan yahay khuluqu sabri wataxamul, khuluqu sabri wataxamul ayaa loo baahan yahay. qofku inuu dhabar ka saarto, inuu shaygan u adkaysto.
marka suuratul casri waan xifdisanahay laakiin laga yaabo dadka inaysan qorshaha ugu jirinba oo dadku iska akrinayaan oo dugsi qur-aanka lagu akrinayo oo masaajidka laga akrinayo oo qofku maantay dhowr mar iska akrinayo suuratul casri boqol iska akrinayo laakiin waxa loogu talagala uusan fahmaynin marka taasi khasaare noqonaysa ninkii shaacirka wuxuu yiri kalciisi fi lbaydaa'i yaqtuluha adama walmaau fawqa duhuuriha maxmuulun awr waxaa jira biyaha la saarto markaad biyaha soo saaratana ilaa iyo gurigii iska aadaya asigu aduguna danahaada kale aad iska raacanaysa ama yara aad iska soo daba soconaysa marka awrkaasi marka wadada uu ka lumo wuu haraadaa markuu haraadaa oo oomo biyo ayaa dhabarka u saaran ma fahmayo inuu cabo biyahaas liannahu xayawaan ma yufakir ya saas oo kaleeto marka banaanka ayuu ku dhimanaya banaanka ayuu ku dhimanaya asigoo biyihiina wada laanna wuu luma gurigii uu ka lumay marka kaas oo kale aan naqana lama doonayo kalciisi fi lbaydaa'i yaqtuluha adama walmaau fawqa duhuuriha maxmuul qur-aanka waan ximbaarsannahay waan wadanaa laakiin ma aanan fahmin alqur'aanu huwa mashruucu nahda qur-aanka ayaa wuxuu yahay mashruucu nahda dib u nooleyn asiga ayaa ah haddii aan fahamno marka haddii aan soo gabagabayno suuraddaanu waxaanu ka fahmaynaa khitatu najaax qorshihii guusha ayaan ka fahmaynaa oo ah 6 kow aliimaan 2 alwaqti 3 alcamal الصaalix 4 waxaa waaye altawaasi bilxaqi ma arkaysaa altawaasi bilxaqi waltawaasi bisabri ma arkaysaa iimaanka iyo waqtiga iyo camal saalix altawaasi bilxaqi iyo altawaasi bisabri waayo marka taas ayay noqonaysaa iyo tan ugu horeysa oo ah tan shanaad waxaa waaye tan lixaad waxaa waaye in waqtiga laga faa'iidaysto tan lixaad waa taas tan lixaadi waa taasaha qiimatul waqti tan ugu horeysa waayo marka qofku waxaa laga yaaba inuu yidhaahdo anigu waxba ma awoodo isbaara horteeda taalla isbaaradaas marka culimmadu way ka hadleen culamaa nahda waxay yidhaahdeen isbaarooyinku waa 3 ayay yidhaahdeen isbaarooyinku waa 3 oo qofku uusan marna uusan ka faka karin qofka liita waaye marka si liidaanaashadaas looga baxo qofku waa inuu fahmo isbaarooyinkaas 3 ah maxay yihiin horta isbaarada kuwaad waxaa waaye ma awoodo wax ma qabo karo laa astadiicu waaye waxba ma awoodo hay ma ogtahay ilaahay inuu kugu nicmeeyey caqli ilaahay inuu ku siiyey inaad mukallaf tahay ma ogtahay haddii caqligaada aad ku shaqaysatid ood ilaahay u cibaado falatid inaad janno ku helayso horta ma ogtahay jannatin carduha asamaawaatu waalard ma arkaysaa marka qofkii yidhaahda wax ma awoodo qofkii yidhaahda waxaa jawaabtiisu waxay tahay ma arkaysaa xaawil aa la yidhahdaa isku day inaad wax qaban karta isku day ayaa la yidhahda isku day ha ka joogsanin isku day adduunyada dhan waa isku dayid daarta gaari inaad samaysid inaad diyaarad kaxaysid inaad waxun samaysid inaad wax baratid isku day caqabadaas marka waad dhaafaysaa marka caqabada labaad marka waxaa waaye maada afcal maxaan sameeyaa waxba ma iska fadhiisan waa iska sheekeynaya fadhi ku dirir baan hayaa waxaan sameeya maba hayo waxaan sameeya ma hayo taasna jawaabteedu waxay noqonaysaa ma arkaysaa tacalam baro ayay noqonaysaa maada afcal macnaha waxaa laa acrif waayo laa acrif garan maayo tacalam aa leeraa baro marka maxaad baranaysaa ood qabanaysaa inaad naftaada horta marka hore aad hagaajisid naftaada markaad hagaajisid kadibna mawaahibta ilaahay ku siiyey hadday tahay aqoon hadday tahay haddii fan hadday tahay haddii wax kala tahay dadka kale inaad siisid dadka kale ayaa u baahan inaad siisid marka qofku inuusan dhihin maxaan sameeyaa inuusan dhihin waa taas marka ka qayb qaado mashruucu nahda ka qayb qaado marka tan saddexaad oo caqabada saddexaad waxaa waaye waxaan sameynaya faa'iido ma leeyihin
wax faa'iido la way badan yihiin raadso waay taasna faa'iidadu marka adiga kuu soo laabanaysaa waddankay usoo laabanaysaa ummadday usoo laabanaysaa marka ha bakhiilin tag oo soco sidii maaragtay gamuun la sii daayo oo kaleeta soco sida gamuun oo kale u soco marka bacdu alxukamaa waxay yidhahdeen 3 kelimo ayaa jirta waa isla 3dii waaye kitaabkooda waxaa waaye laa aqdir ma awoodo laa acrif ma garanayo mustaxiil shaygana waa shay mustaxiil ah mustaxiil waxa la yidhaha ma jiraan mustaxiil ma jiro ha aamin waxa la yidhaha mustaxiil inay jiraan marka qofkii yidhahda la yidhi ma awoodo waxaa la yidhahdaa isku day qofkii yidhahda ma garanayo maxaa la yidhahdaa baro qofkii yidhahda mustaxiil waaye waxaa la yidhahdaa jarrib shayga kan jarrib marka taasna marka waxay ku tusaysaa qofku inuusan marna uusan kusoo dhicin ayay tusaysaa quustuna waa shay aad iyo aad u xun marka qaybtii koowaad ama xalaqadii labaad intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu aada iyo aada u mahadsantihiin idhegeysiga aada idhegeysateen waxaa noo madal ah درسiga 3aad ama xalaqada 3aad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته